sheekada markay meesha marayso Soomaaliyeed aan waxaan dhigi lahayn cunugu waa waashay asiga yar ayuu waashay صح aqbali lahayd cunugaas adiga dhashay inuu hadana uu family kale leeyahay yani hooyo kale in uu leeyahay waa magacay waaziyo channelku waxaan ku soo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqo ah falogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قاليجا ولاشين زيو إذن الله يعني وعفمات قوام اللي بدون ذا كجوكتان يسود الدبادة ومركلة إيه فيديو جام إن ما توحن أوهات لنا المير أو كهذا ريو نول شودي هوري والمير سيدي نول هوري ويلا كران إس الفيديو جام أيتكو أوجدونتان سود الدبادة دعوان أن ما كهذا ريو أي واحد هوري ودعوة أيضا فربضن لكن سأني وحن سوق قاعدونا لبا كميدا هايو cunugeedii oo ooynaya maqashay kadibna markay u tagtay ku yiri hooyadii ma tihid xanuun intee la eg ayaa dareemi lahayd sidee ayaana ugu aqbali lahayd cunugaas adiga dhashay inuu hadana uu family kale leeyahay yani hooyo kale in uu leeyahay isla sheekadeena aan gudu garno Harley waa wiil yar oo jiro 3 sano maalmaha kamida ayuu oohin afka furtay kadibna hooyadiis ayaa u gashay asigoo ku jiro qolkiisa hurdada aabisna saalada ayuu wax ku aqrisanayay laakiinse hadalkiisa idil uu maqlay kadib wuxuu yiri waxaan u baahanahay hooyaday ayadoo yaaban ay wixii tirayso aniga mii hooyada maya ayuu yiri hooyaday matiida horaan kuugu sheegay dhowr maraan ku sheegay yani ma rabtid in aad iga maqashid aabihii ayaa hadalkaas maqlay laakiin isla markii wuxuu uu isyiray wiilkan yar hooyadiis mid uu caareysan yahay ama way dishay ama waxba ku dhacay laakiin marnabo nidiisa ma soo galin cunugiisa yar waxa uu damacsan yahay aabihii bartii ayuu asigana ka soo dhaqaaqay uguna yimid wiilkiisa asigoo dhahayo maxaa kuugu dhacay maxaa dhacay wuxuu ku yiri aniga waxaan u baahanahay hooyaday iyo aabahee aaway la yaab biyatan oo kala arkay soo hooyada iyo aabaha anaga manihi anaga maxaa soo ku nahay may ayuu leeyahay hooyada iyo aabay mid bartii ayaa lagu qanciyay seexa ayaan lahay sirsiris kadib uu iska hurday hooyadii iyo aabihii walwalka hooyada ay ku batnay waayo dhowr mar ayuu wuxuu ku yiri aaway hooyadii xaqiiqada laakiin aabaha markii basariirta ay watay wixii uu iska iloowi uu iska hurday hooyada laakiin waxay noqotay mid fikirta aan seexan wax badan ka walwalsh cunugeeda kadib maalmaha kamid ay magaalo kale oo xoogaa ka fog ee hooyada xaflad u ahday xafladaas ay ahayd mid 2 maalmood ama 3 maalmood ay ku maqnaanayaan kadibna ninkeeda ay wuxuu ku sitirsi joog ani iyo wiilkeyga ayaa baxeeno wiilkii markii gaariga la raacay ayuu habartii nabar ku dharbaaxay kuna yiri xafladeen xaqiiqada ahayd ma loo socdaa war aad waxa la xaqiiqada iga dawadin maxay tahay bismillaahi maxaa maanta oo dhan hooyadii xaqiiqa xaafadeen xaqiiqa xaafada ma taqaana markaas uu yiri xaafadan ayaan aqaana wili wadadan aan saaranahay waxa la dhisay 30 sano ka hor waa xasuustaa hooyadii ayaa wuxuu ila yaabtay cunuga wadada sheegay wadadan waxaan u xasuustaa wax shalay darad ee u dhaceeno wiilka hadalkiisa markii la fiiray aad ayuu u yariyaa laakiin hadalada uu ku hadlaa hadallo waaweyn hooyadii wuxuu ku jiray wal iga aamus markaan aabaha u soo laabano oo xafladda ka soo laabano ayaan la fadhiisanayna waxaan ka hadlaysidna aan si fiican u ogaanayna wiilkii xaafadii markii lugta loo dhigay waa kanbo magaaladii dhanba hal u yaqaano meeshan saanal dhijir meeshan saani ay jirtay meeshan kan hooyadii u qorsheysneed 2 beri in ay maqnaato ilaa ay 3 maalmood ayaa isla markiiba surco ku soo laabatay ayadoo adkeysaysay cunugeeda yar waxa uu sameeyanayo iyo dhaqankiisa iyo wax walba uu leeyahay waa aqaana inta saanay ahayd meeshan dukaano ahaa jiray nacnacan ka iibsi jir markaan yaraay haduu bayariyahay waqti hore uu yaraay yaa fahmi karo gacantay soo qabatay baawurkeeda dib u soo raacday ayadoo dadkii xafladani ku raadi gelisay una sheegtay in ay ka xuntahay in ay ka tagto laakiinse ay soo joogi karin odaygeed markay u soo laabatay wixii ku tiri cunugaaga yar bal wareysabo muxuu damacsan yahay
وكان حافظي هل وأقونصدي تهذا كلا الشارع وحاب إيجا سيدران يري شارعان وحالات للصي صدن سنة كهر أذيك ويبكي سلفة للصي أصيغو hooyadani aad u walwalsan tahay ay wuxuu ku yiri ii sheeg ba maxaa dhacay wuxuu yiri ani ii waxaan ahayn walaalkii igu weyn yaa tan oo kale ark hadda ay ka daran tahay asiga guriga curdu u yahay oo hooyadani aabahan kaligiis ay dhaleen laakiin wuxuu taagayahay ani ii walaalkii igu weyn oo walaal weyn ma leedahay ha walaal weyn ayaan la wili hooyo kale ayaan leeyahay magacood wuxuu ku yiri walaalkii weyn haajid ayaa lahaa haajid yaa tan oo kale arkay oo walaalka weyn ma haajid la okay hooyada magaceed hooyadeena waxa la Stacy wiilashan aabahooda wuxuu dhintay ayagoo yar yar wuxuu ka hadlaa asiga noloshiisa hore labadan wiil oo sheegayo asigiyo Harry iyo walaalkiis ka weyn oo haajid iyo hooyadood oo Stacy saddexdoodna wuxuu dhahay waxaan ku nooleen nolol aad u qurux badan mar walbana waxaan rixlo u aadi jirnay meeshaas la dhaho waxa ka ano yaani waa ilmo yar oo 3 sano jiro sheekadan uu ka sheekeynaa maskaxiisa way ka weyn laakiin waa sheeko marka dambeeysa tartiib oo soo xasuusanayo wuxuu dhahay walaalkii uu jeclaa jiray meeshaas ay aadi jirnay teendaan dhisi jirnay يعني سي أن يعني وقت وقاعد مرة قاعد ولكن تندد الحديث أيوة فيلم كداوي جري أنا وأن لداوي جري فمن كان أيوة حين نقدم فمن أو إن التاك صهاري إلى ويكو وح وكشة كان يلي بينهن كتب أيوة وحي ويدين محا أذي أنتو كاني مركز وح وجوابي قاري أيا إدلي مركي يودن بيس كدبنا وحان بأركبه أنا وجرجاني تجو كلها أو إنك أبي هي 60 أبي تي وعنتم ويسي قاري أو كدير كدب جرجانا بس أركتميها أوكي عنو جوال سرسري كدبنا بس كحيس أيا لديجي وحال حافظة تجينا walaalka weynaan raadinayna maashuu yiri kadib waa la soo baxay xaafadii loo soo laabtay xaafadii markii la yimid oo la weediiba magacii hooyada iyo wiilkii weynaay waaba family jiraba oo joogo wiilkii wuxuu sheegay walaalkiis in Johnson la dhigi jiray walaalkii wuxuu yiri Johnson ay 3 sano ka hor ayuu naga dhintay nafsu maalintii oo Johnson dhintay ayuu Harley na dhashay Harley reerkan ayaa u baxsaday oo asmagiisa hore wuxuu ahay Johnson wiilkan ayaa laba xasuus ayuu noloshii hore oo reerkaas oo wax walba ayuu ka xasuustaa wuxuu taagan wiilkan waa walaalkay hooyadeen waa hiblaayo oo saanan sameey jirin isla reerkaanne maalinta oo wiilkaas oo Johnson dhintay ayuu Harry u dhashay oo Harry waa curudkoodii oo hadda u jiro 3 sano laakiin maskax ahaan yaani waa nin heesto in uu family kale leeyahay Johnson dhimashadiisa ayaa 3 sano laga joogaa wiilkan yar hadda dhashay wuxuu heestaa يعني مسكح عنق تضبي تونجرة وايو وحوليه يعني مجيء هبل الله غير كاس عن كذا شيء غير كاس شيء كذا مركب ماشى مريس وصومالات دي أنا وحنقي لهن عنق واش أصيغ يرى أي واش صح لكن سيد كان أي وحي أمسيهن نكاس لنتي روح ديسا إن أي قشي المهاير ويكون رحموش هاي روح ديسا أي نول عندنا جسمي ورشي لكن وحاجة شيء روح دي نكي لنتي وقصة لبعض أنا إذن هاي وأصل قصة أنا وكله نفس السنة أي شبه ذا وايو وجبر ير أو ريك طلي وبحثين برليمة أيضا وح إيه ستا نول أن نلش هذا إهين أو نول أد وين إسل برلينا سأوجد أي مال وحب إسقصة جرتب فيريا إنك 160 برفونك أو نوعنا هلا المير وفرجر وحتى نكشة كنا برفون إيو عطر إيو وحياو استعماله مركز حلو راي ولجين نوعس ما أنا استعمالين محالة وحتى أن نلشي ذا ولجين ما أنا استعمال نوعنا وحين استعمال جري نوع فلان يعني نوع هولا استعمال جري نوع أيضا ربطه أي شيء وهالمير أفرسن يجرو حدنا الضلبنا برفون اوكي فمل كذا فمل ايج علايان waxay dhaheen nooci adiga arabtid oo lagu iibina laakiin istiji maxaa waxa oo mi isticmaashin miya maxay guriga iskale adaan ku dhalatay gabadheena tahay waa in ma isticmaalna miya ina dhahdid hadda sidaas tahayna barfuunka arabtida lagu soo iibina maadaama ay 4 sano gaartay in ku jirto xilligii iskuulka ayaa waxa la geeyay iskuul ayadoo yaani maalin walba reerka ku wareerisay heblaay aaway magacyo aanan familkan balahayn aan u dhaween ay mar walba weydiisaa isla hooyadoo la yaabano isla maxay tahay gabadhaada maalin walba wixii ku weydiiso haddana familka ayaa waxay noqdeen kuwa aan gabadha dabagelin aanan baarin aanan yaani hadaladeeda waxba ka soo qaadin maalmaha kamid ah ayadoo iskuulka ka imaado hooyadeedna la socoto ay waxay wadada ku aragtay nin wadada kala gudbaayo
ninkii u qayl dhansatay hebel kaali hooyadeeda waxay tiri muwaalan tahay maxaa ka rabtaa ummadda markaas wuxuu ku tiri ninkan hooy mid qaanid miya walaashay igu weyn ninkeed waay familkan gabadha curude u tahay ayadan waxay haysataa gabar ka weyn oo walaasha ka weyn ninkeed miya ninkii wuu usoo laabtay laakiinse hooyada way yaaban tahay gabadheed waxay ka hadlayso ninkii salaantay magaca ee u sheegtay ayaa hooyadii ka yaabiyey hooyada gabadheeda waa magaceed barliima meeshii laga sugayay waxay isku soo jirtay mid qaanid miya aniga jirni daarsa ayaan ahay jirni daarsada maxaa way hooyada way yaaban tahay ninkii wuu yaqaanaa jirni daarsa oo waa dumaashadiisa oo dhimata ayadana 4 sano ka hor naxabintuu naxay meeshuu ka cararaybo ilmii bab u sii taagnaaninbo hooyadii way yaaban tahay gabadhii wadatay ku tir soo bax jirni daarsa ku dishay makeen guriga la tagay guriga markii la tagay ee gabadhii waxay ku tiri mii maqlaysiin anika waxa tihiin familkeygii labaad ani famil horaan leh walaal igu weyn haysta ninka hadaa soo arkayna waa walaashay ninkeeda waxaan haystaa ayaan haystaa awoowaan haystaa adi heeso waxa haysatid la tusaale waxa haysatid ma lahe gabariyahana waalna naga fadhiiso gabadhii shakli kale la soo baxday timaa inay si qaasa u jarato dharka nooc oo yani ayada oo u go'an inay qaadato in ay yani cuntada xataa ay cuntada guriga ay soconin cunto ayada qaasa hadana nooc kale ay samaysato waa gabar yar hadana dhaqamadeeda u eg gabar oo yani khalaasa ku jirto waaga yani ay weynaata camal markaas aabi wuxuu ku yiri yani waxaan oo dhan hubigaaga miya adi ma keeshid gabadheedii markaas uu ku yiri may wiligeeyaan jeclaa jiray aabahay xaqiiqiyuna wuu ogyahay hadii xaalad si xumaanaysa war aniga ku dhalay aabahay xaqiiqi maxaa ma yeeshaa inta ani aacila leenahay xaafadii sheegtay wuxuu ku tiri aniga waxaan caan ku nahay waxaan sameynaa barfuun hebel waa barfuunka ayada jecleed barfuunkaasna xaafadaasid waa laga ogyahay halkaas cid in ay qaas u tahay ay sameeyaan cidiyaa la raadiyay xaafadiyaa la tagay ee ayada sheegtay gabadhii waabo ayada ugu hormartay guriga markay aragtay bo dalq inay tiri ee dadkii halaal u islaantay ee hooyada ee aabeed ayada waday familkii u imaadeen meesha ka wareysan lahaayeen ay dhiilaayeen mucjisana aragnay yani xaqiiqo miya magacyadaas ma leedihiin familkaas ma tihiin gabadhii aab inay soo boodiyay wixii taa inta tan walaashay waaye wiilkan it walaashay ninkeed waaye hayay aabaheeg waaye hooyaday waaye familkii kale imaadeen ayaa familkii ee joogeen barosaabo waxay bataagantahay ani waxaan ahay jirni daarsa markii la wareystayna waxay ayadana dhimatay sidoo kale 4 sano ka hor da'da ee gabadhan jirto ayay moodan tahay markii dhimanaysin waxay ku jirtay xiliga 17 jirka sida wiilka aan ka soo sheekeynay oo kale arinta waa cabsi hadee cunugaaga oo ruux asiga lahayn in uu ku dhaxnoolaado kadibna uu ku dhahayo famil kale ayaan leeyahay isla Barliina labo nolol ay sidaas ugu noolaatay noloshii tii dambo 4 jirka ee noloshii familkeedii hore oo ay u ahayd xiligaas 17 jira markii ay ka dhimanaysay hadda labadii famil ay u dhaxaysaa dhaxdood ay ku noolaatay kuwaana qaasm u qaadanin kuwaana qaasm u qaadanin waayo ayada ayaa badiiday oo tiray aniga familkan ayaa dhaleen hadii inka arabtiin in yani idin ixtiraamo ani nolosheeda xor ah la iiga dhigo labadiina boosaan famil ugu dhigto san laba sidaas hadda ayaa go'aan lagu gaaray maadaama ayada ay codsatay balse waxay ka duwan tahay Harley hooyadiisa ma aysan nooleen oo waxaa noolaay walaalkiisana mar alla markuu wax walba uu sheekeeyay familkii ay wuxuu ka codsaday in uu u imaan karo soo booqo karo wiilkooda si uu ugu soo xasuusto walaalkiisa intaan ayaan jeclaystay in aan idin soo gudbiyo maalmahan aad ayaan idin kaga soo dahay wax kale ma ana u maqneen babyga yar ayaa iga xanuunsan wasiim ah leeyahay ugu soo duceeyo dhammaantiina waxaa idin leeyahay waa mahadsantiin hadaa hore ila joogtay waa ku mahadsantahay daawashada videoga haddii aad ku cusubtahay fadlan soo dhawo channelka waa channelkaaga subscribe dheh faro gambaleelka si uu ku dhaafin wax walba ay soo dhigto walaashaas ziyo kule dunida waa wax yar ee gaaban is xisaabi intaan ugu xisaabin ka hor bye bye